dadka ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadun rasuulullah afka kaga wada dhawaaqay waxyaabaha lagu kala soocaa inay tahay salaad. sida daraaddeed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala munaafiqiinta markii la astaynayey wixii lagu asteeyey waxay ahayd salaad xumo. munaafiqiin ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu asteeyey ee tilmaamay waxaa lagu tilmaamay ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allah wa huwa khaadicuhum waida qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha ila qaliila ama walaa yaatuuna asalaata ila wahum kusaala fi suurati tawba w suurati nisa. ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu rabay in mu'minka dhabta ah laga dhex tilmaamo ka munaafaqa ah ee nifaaqa ku sifoobay ee hadalkan uu afka ka leeyaa shahaadii aanu dhab ahayn, astaanta rasmiga ee lagu dhejiyey waxay noqotay inay yihiin kuwo salaadooda u kacaya iyagoo kusaala ah, iyagoo caajisa, iyagoo liita, iyagoo aan dan badan ka lahayn. taa macnaheedu waxa weeyaan markii dadka la kala tilmaamaya waxaa lagu kala tilmaamay nawciyadda salaada ay tukanayaan iyo salaada ay tukanayaan inta ay leegtahay ama waxa ay tahay. sidaa awgeed waxaynu leenahay qur-aanku wuxuu in badan inoo tilmaamayaa xataa muslimiinta dhabta ee la ammaanayo ilaahay wuxuu ku ammaanayaa kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun, inay salaadii caadiga ahayd tu ka dheeraada wadeen ayaa waxaa laynoogu tilmaamayaa inay tahay sifaadka dadka sare abraarta ah. in alabraar dadka hagaagsan ee muslimiinta qima taagan inay yihiin kuwa ka salaad fiican leh kuwa kale. sidaa awgeed buu nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ku tilmaamayaa in salaada laga yeelay waxyaabaha ishiisu ay ku doogsato ama ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaado. waxaan odhan karnaa marka salaada aynu leenahay muhimmadaasay ku leeday inaynu si kale u tilmaamaabaan rabaa. marka waxaan leenahay salaadu waa tanbiih ama waa qofka oo lagu baraarujinayo ilaa huwiyatihi alxaqiiqiya. salaadu waa waxa tilmaama qofka identitygiisa dhabka ah, identity yacni caddayntiisa, taysaradiisa dhabta ah, waxa uu yahay. huwiya waa huwagiisii kaa tahay waxa caddaynaya waa salaada. oo maxuu caddaynaya? wuxuu caddaynayaa inaad ogolaatay alle inuu rabbigaa yahay oo aad isaga ka dambaynayso. awalan waxaad caqiidaysatay sidatan, laakiin waxaa la rabaa more practical, inaanay nadariyaad noqonin aad haqaafa aad rumaysato oo caqliga gasho keliya inaanay noqonin, laakiin inay noqoto wax dhab ah. sida awgeed salaada haddaad acmaasheeda u fiirsato waxa weeyaan intaad istaagtay oo soo weysaysatay oo aad ilaahay is hortaagtay oo aad takbiiratay ayaa waxaad aqbalaysaa jidhkaaga meeshii u qaalisanayd inaad dhulka saarto. saynu in badan tilmaamnay insaanku wejigiisu ugu jecel yahay. wejiga in ceebi kaa gaadho ama wax kaa gaadhaan ma jeclid. wejigu waa meeshaa markaad subaxii suuqa u soo baxayso aad soo maydhaysa, nadiifinaysa, hagaajinaysid. mar rabtid inaad qofna uu ku arko iyadoo wejigaagu aanu hagaagsanayn. meeshaad habeen iyo maalinba ka shaqaynaysaa caynkanaba waxaad ogolaatay halkaad cagaha ku haysay inaad dhigto, inaad sujuuddo. macnaheedu waxa weeyaan salaadu waxay astaan ka tahay oo ay si dhaba u tilmaamaysaa hadday dhab kaa tahay inaad muslimka xaqiiqiga adigu tahay, inaad mustaslim lilah, alistislaam alxaqiiqi lirabbi alcaalamiin, isdhiibitaan dhab ah inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala ula timi. salaaddu waxa ay tilmaamaysaa alsidqu maca allah, inaad ilaahay u run sheegayso. intaad is hortaagtay aad baryayso, intaad is hortaagtay aad tilmaamayso iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin, intaad is hortaagtay aad kaalmo ka dalbayso, intaad is hortaagtay aad wax weydiisanayso.
qofka salaad aqbalay wax kale ma diidi karo waayo waxaan leenahay salaadu waa wixii ugu dambeeyay aad yeeli kari lahayd haddaad aqbashay inaad kaba tanaasusho kibir iyo isla weyni iyo caqligan yar inuu kuu taliyo yani insaanka caqligan yar ee aad la wax weyn ku tahay haddaad ogolaato intaad foorarsato inaad madaxa dhulka dhigto dabada cirka u taagto taa haddaad aqbashay macnaheedu waxa weeyaan waad isdhiibtay macquul maaha marka inaad tukato hadhowna lagu murmo shareecada ha la dabaqin la dabaqin waa غير macquul weli dadkaynan salaada fahamsiinin markaa weeyaan haddii ay dhacdo inuu saful awalkaynugula jiro oo salaada aan cidiba ka soo horraynin hadhowna uu ku murmo shareecada lama qaadan karo ama qur-aanka lama dabiqi karo salaadaynan dadka weli u dhigin weeyaan xaakimiye iyo islaam iyo iqtisaad iyo waxaynu raadinaynaa waxay ku jirtaa inaynu salaadan si fiican dadka u barro waxay ku jirtaa inaynu dadka muslim xaqiiqiya ka dhigno haddii la arko qofkii oo islaamka badh diidan ama badh inkiraya ama badh dafiraya ama badh fudaydsanaya haddana tukanaya macnaheedu waxa weeyaan salaadii baan si fiican loo fahamsiinin ama aynan si fiican u sharxin ama aan si fiican uga dhaadhicin ولذلك بقى النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه dadkii gaalada soo islaamay waxyaabo badan buu ka aqbalay mid yiraahdo uu jihaadka ma awoodi karo mid yiraahdo uu waxan ma qaban karo laakiin salaad la'aan kama aqbalin kii ugu yaraa xadiista salaada ku saabsan ama wufuuda ku saabsan xadiidka imaam ahmed uu ku soo aroorinayo sanad sheekh al-albani uu ku tilmaamay ala shart sahih muslim inuu yahay xadiis macruufa ninbaa u yimi oo islaamay wuxuu dhawaan islaamaya laakiin anigu salaadaasi tukan kari maayo nabigu wuxuu dhimay tuko haddaba laba ka badan ma yeeli karaya buu yiri barorta islaam labadana tukabuu nabigu ku yiri salawaatullaahi wa salaamu alayhi yani hadduu lababa aqbalay wuxuu nabigu tilmaamaya inuu inta kalena aqbali doono inuu hore laba salaada ninka yeelay islaamnimo inuu hore u gali doono xadiisku hadis saxiixa laba salaado ka aqbalay ولذلك الشيخ الألباني في ثمر المستطاب marka uu tilmaamayo waliga muslimka dadka gaalada soo islaamaya haday yiraahdo war laba tukanayna in laga aqbalo weeyaan bulay labada balorta ku soo galaan inta ka dambaysa waa loo sii sheegi doonaa dadka ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah afka kaga wada dhawaaqay waxyaabaha lagu kala soocaa inay tahay salaad sida daraadeed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala munaafiqiinta markii la astaynayay wixii lagu asteeyay waxay ahayd salaad xumo munaafiqiin ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu asteeyay ee tilmaamay waxaa lagu tilmaamay ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allah wa huwa khaadicuhum waida qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha ila qaliila أما ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى في سورة التوبة وسورة النساء إلهي سبحانه وتعالى مركو الربي إن مؤمن كدبت الله قد نحت المامم كمنافقة النفاق كسف وبي هذا كان وافك كلي يا شهادي أنا الضبهين أستانت الرسم قال لمدة شيء وحي نقطي إن يهين كو صلاة دوكع يغو كسالى iyagoo caajisa iyagoo liita iyagoo aan dan badan ka lahayn taa macnaheedu waxa weeyaan markii dadka la kala tilmaamayo waxaa lagu kala tilmaamay nawciyadda salaada ay tukanayaan iyo salaada ay tukanayaan inta ay leegtahay ama waxa ay tahay sidaa ogeed waxaan leenahay qur-aanku wuxuu in badan inoo tilmaamayaa xataa muslimiinta dhabta ee la ammaanayo ilaahay wuxuu ku ammaanayaa كانوا قليلا من الليل ما يهجعون inay salaadii caadiga ahayd tukadheeraada wadeen ayaa waxa la inoogu tilmaamayaa inay tahay sifaadka dadka sare abraarta ah inna al-abraar dadka hagaagsan ee muslimiinta qimma taagan inay yihiin kuwa ka salaad fiican leh kuwa kale sidaa ogeed buu nabi muxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi ku tilmaamayaa in salaada laga yeelay waxyaabaha ishiisu ay ku doogsato
ama ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaado. waxaan odhan karnaa marka salaada aynu leenahay muhiimadaasay ku leeday inaynu si kale u tilmaamaabaan rabaa. marka waxaan leenahay salaadu waa tanbiih ama waa qofka oo lagu baraarujinayo ilaa huwiyatihi alxaqiiqiya. salaadu waa waxa tilmaama qofka identitygiisa dhabka ah, identity yani caddayntiisa taysaradiisa dhabta ah waxa uu yahay. huwiya waa huwagiisii kaa tahay waxa caddaynaya waa salaada. oo maxuu caddaynaya? wuxuu caddaynayaa inaad ogolaatay alle inuu rabbigaa yahay oo aad isaga ka dambaynayso. awalan waxaad caqiidaysatay sidatan, laakiin waxaa la rabaa more practical, inaanay nadariyaad noqonin aadi haqaafa aad rumaysato oo caqliga gasho keliya inaanay noqonin, laakiin inay noqoto wax dhab ah. sida awgeed salaada haddaad acmaasheeda u fiirsato waxa weeyaan intaad istaagtay oo soo weysaysatay oo aad ilaahay ishortaagtay oo aad takbiiratay ayaa waxaad aqbalaysaa jidhkaaga meeshii u qaalisanayd inaad dhulka saarto. saynu in badan tilmaamnay insaanku wejigiisu ugu jecel yahay. wejiga in ceebi kaa gaadho ama wax kaa gaadhaan ma jeclid. wejigu waa meeshaa markaad subaxii suuqa u soo baxayso aad soo maydhaysa, nadiifinaysa, hagaajinaysid. ma rabtid inaad qofna uu ku arko iyadoo wejigaagu aanu hagaagsanayn. meeshaad habeen iyo maalinba ka shaqaynaysaa caynkanaba waxaad ogolaatay halkaad cagaha ku haysay inaad dhigto, inaad sujuuddo. macnaheedu waxa weeyaan salaadu waxay astaan ka tahay oo ay si dhaba u tilmaamaysaa hadday dhab kaa tahay inaad muslimka xaqiiqiga adigu tahay, inaad mustaslim lilah, alistislaam alxaqiiqi lirabbi alcaalamiin, isdhiibitaan dhab ah inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala ula timi. salaadda waxa ay tilmaamaysaa alsidqu maca allah, inaad ilaahay u run sheegayso. intaad is hortaagtay aad baryayso, intaad is hortaagtay aad tilmaamayso iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin, intaad is hortaagtay aad kaalmo ka dalbayso, intaad is hortaagtay aad wax weydiisanayso. qofka salaad aqbalay wax kale ma diidi karo, wax kale ma diidi karo. waayo waxaan leenahay salaaddu waa wixii ugu dambeeyey aad yeeli kari lahayd. haddaad aqbashay inaad kaba tanaasusho kibir iyo isla weyni iyo caqligan yar inuu kuu taliyo, yani insaanka caqligan yar ee aad la wax weyn ku tahay, haddaad ogolaato intaad foorarsato inaad madaxa dhulka dhigto oo dabada cirka u taagto, taa haddaad aqbashay macnaheedu waxa weeyaan waad isdhiibtay. macquul maaha marka inaad tukato hadhowna lagu murmo shareecada ha la dabaqin la dabaqin, waa hayru macquul. weli dadkaynan salaada fahamsiinin markaa weeyaan. haddii ay dhacdo inuu saful awalkaynugula jiro oo salaada aan cidiba ka soo horaynin, hadhowna uu ku murmo shareecada lama qaadan karo ama qur-aanka lama dabiqi karo, salaadaynan dadka weli u dhigin weeyaan. xaakimiye iyo islaam iyo iqtisaad iyo waxaynu raadinaynaa waxay ku jirtaa inaynu salaadan si fiican dadka u barro, waxay ku jirtaa inaynu dadka muslim xaqiiqiya ka dhigno. haddii la arko qofkii oo islaamka badh diidan ama badh inkiraya ama badh dafiraya ama badh fudaydsanaya haddana tukanaya, macnaheedu waxa weeyaan salaadii baan si fiican loo fahamsiinin, ama aynan si fiican u sharxin, ama aan si fiican uga dhaadhicin. walidalik baa nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dadkii gaaladee soo islaamaya waxyaabo badan buu ka aqbalay. mid yidhaahdo anugu jihaadka ma awoodi karo, mid yidhaahdo anugu waxan ma qaban karo, laakiin salaad la-aan kamuu aqbalin. kii uu ugu yaraa axaadiista salaada ku saabsan ama wufuudda ku saabsan, xadiidka imaamu axmed uu ku soo aroorinayo sanad sheekh alalbani uu ku tilmaamaya calaa sharti saxiixi muslim inuu yahay xadiid macruuf ah. nin baa u yimi uu islaamay,
wuxuu waan islaamaya laakiin anigu salaadaasi tukan kari maayo nabigu wuxuu ma tuko haddaba laba ka badan ma yeeli karaya buu yiri barorta islaam labadana tukabuu nabigu ku yiri salawaatullaahi wasalaamu calayh yani hadduu lababa aqbalay wuxuu nabigu tilmaamaya inuu inta kalena aqbali doono inuu hore laba salaada ninka yeelay islaamnimo inuu hore u gali doono xadiisku hadis saxiixa laba salaado ka aqbalay walidalik sheekh al-albani fi thamar al-mustatab marka uu tilmaamayo waaliga muslimka dadka gaalada soo islaamaya haday yiraahdo war labaan tukanayna in laga aqbalay weeyaan bulay labada balorta ku soo galaan inta ka dambaysa waa loo sii sheegi doonaa